مواد دستور شقية وكالة تنبين برنما لغو دوجيو دلقا لغو مامولا هوي دلقا لغو مامولا دولني مواد دستور شقية وكالة تنبين برنما لغو دوجيو دلقا لغو مامولا هوي دلقا لغو مامولا lagu kala hagaa daweeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya dastuur waa inoo muhiim bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti habboon meela joogtaa badaawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena iimaylka ramadaanka iyo hadiyada dastuurka oo ramadaan kasta aad ka daawataan warbaahiyaha dowladda jamhuuriyadda somalilan ee telefishinka qaranka somalilan barnaamijka waxaa iska kaashanaya wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka somalilan iyo sidoo kale waaxda wacyigelinta ee wasaaradda warfaafinta somalilan ku soo dhawaada barnaamijka dowladnimo waa dastuur shaqo wakala dambeyn barnimo lagu doojiyo dalka lagu maamula hoy dalka lagu maamula مواد دستور شقية وكالة تنبين برنما لغو دوجيو داوديال برنامج waxa ku turjumaya xaqa muwaadinku ku leeyahay dalkiisa hooyo ee uu damaano qaaday dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xaqa uu dalku ku leeyahay muwaadinka hadaba mid kamid ah muwaadiniinta ka qayb galaya barnaamijka iimaylka ramadaanta iyo hadiyada dastuurka ayaa ku soo dhaweynaya magaca Xasan Axmed Cali xasan ku soo dhaweey barnaamijka iimaylka ramadaanta iyo hadiyada dastuurka oo iska kaashanaya wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka iyo waaxda wacyigelinta ee wasaaradda warfaafinta Somaliland sidoo aragta barnaamijka waxaan u arkaa inuu wanaagsan yahay dastuurka wali ma akhriday dastuurka waan akhriyay su'aal baan ku weydiin doonaa haddii aad su'aashaasi ka jawaabto waxaad leedahay abaalmarintaas oo ah dastuurka jamhuuriyadda Somaliland oo lagu siin doono iyo sidoo kale qadar lacaga oo aad ku afuri doonto insha Allah oo ay kugu tala gashay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurku su'aasha sare koodanta gudoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorka maxkamadda ayaa magacaabaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweynuhu markaa ayuu la tashi kala sameynaya wuxuu kala sameynaya golayaasha golaha guurtida iyo golaha xildhibaanada su'aashaasi sax kuma aha laakiin maadaama aad sheegtay in madaxweynuhu magacaabayo qofkii ugu horeeyay ee ka jawaaba amaba barnaamijka nasiib u yeesha tahay abaalmarin baa kugu tala gashay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ayaanu halka kugu doonsiin doonaa qofkii ugu horeeyay nasiib u yeesha waa tahay mesela markii hore barnaamijka ku guuleysay waan ku rajo weynaa waxaanu halka ku guddoonsiin doonaa abaalmarintaasi waxaanu halka ku guddoonsiin doonaa abaalmarintaasi ay kugu tala gashay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurku barnaamijkan insha Allah waxaan rajaynayaa dastuurka la akhrisan doonto seebada arka barnaamijka waxaan u arkaa inuu saxan yahay barnaamijkaasi madaxweynuhu uu ansixin karo wixii dastuurku soo ansixiyaan iyo labada gole aad baad mahadsantahay waa tahay walal magaca xamid ku soo dhaweey barnaamijka iimaylka ramadaanta iyo hadiyada dastuurka weli barnaamijka ka qeybgashay markii hore dastuurka safety dastuurka waan dhegeysta mar baan soo dhegeysta idaacada raadinaysa waayahay su'aal baan ku weydiin doonaa su'aashaasi haddaad garato waxaad leedahay abaalmarintaasi oo ka kooban qadar lacaga iyo sidoo kale dastuurka jamhuuriyadda Somaliland ay kugu tala gashay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda Somaliland guul oo gurtayna insha Allah su'aashaasi inaad ku bilowdo diyaar ma u tahay su'aasha sare koodanta dadka xiskooda aan u dhamayn ayaa xilka saariya ee aan lahayn wuxuu ka saaray dawladda ka saaray in xaansaday meergiisa hore dhakhtarkiisa dawladda xilka saaray waayo taasi waxa ku saxo
su-aasha de iyo mas-uulka muwaadinkaasi waa uu ku guulaystay si waafaqsan qodobka 19 ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan dowladda ayaa xilka saaran yahay dadka amaankoodu dhinay inay iyadu xanaanayso oo ay goobaha loogu talagalay in lagu xanaaneegayso marka hore meesha ku guulaysaysaa ismalaan guulaysay TV qaranka jamhuuriyadda somalilan aad iyo aad u mahadceliyay waxaan leeyahay siwad barnaamijka awdid way aad iyo aad muwaadinkaasi mahadsan yahay waxaan guddoonsiin doonaa abaalmarin ka kooban qadar lacageed iyo sidoo kale dastuurka jamhuuriyadda somalilan dastuurkana insha allah waad akhrin doontaa wax badan waad ka fahmi doontaa xuquuqda uu dalkaaga kugu leeyahay iyo xuquuqda dalkaaga ku leedahayba halkan ayay kugu jirtaa abaalmarintaasina laga guddoon abaalmarinta aad iyo aad u mahadsan TV qaranka jamhuuriyadda somalilan waagaag weli waxaad daawanaysaan barnaamijka hiimeynta ramadaanta iyo hadiyada dastuurka ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan mid kamid a muwaadiniinta ka qayb galaya barnaamijka ayaanu halkan su-aal ku weydiin doonaa walaal ku soo dhawow barnaamijka hiimeynta ramadaanta iyo hadiyada dastuurka waa ku dhawaayey ahlan wasahlan warxmad weli barnaamijka ka qayb gashay TV qaranka si meel kale TV qaranka waa maanta wadis maanta wadis weeyaan maalinka guri dastuurka توشيرك اسمه فعلا اسمه حمين متوسط واي برنامجك waxaana kamid ah ragga wadada dastuurka tii ku dhahaan xagga diinta raano kale dhaha diinta way dastuurka waxa ku jira dastuurka qaranka in aan la dhaafin xeerka diinta waxa ka hor meel keenin marka la yiraahdo diinta qawaaniin bas ku xukumaan waxa kamid ah ragga yiraahdo dastuurka dadka Soomaaliya waxa ku qoran in aan la dhaafin diinta sharciga oo golaha guurta maanta dibadda la soo bandhigay qowmuluud ficilka qowmuluud kama hadal waxaan u de sharciga diinta اساسا لي واي aad aad ma tahay muwaadin hadaad barnaamijka su'aal buu ku weydiin doonaa su'aasha si hadaad garato abaalmarin baad leedahay abaalmarintaasi oo ka kooban qadar lacag iyo dastuurka jamhuuriyadda somalilan su'aal baan ku weydiin doonaa su'aasha soo koobanta golaha fulintiisa ku yihiin golaha fulinta labada golaha fulinta baarlamaanka golaha fulinta ku yihiin golaha fulintu laba station golaha fulintu laba arday asoo guriga ka badiyihiin waa golaha guurtida baarlamaanka golaha fulinta aduu ma waxa u taqaanaa baarlamaanka madaxweynaha maqnaa madaxweynaha waa maxamed wasiiraha mise madaxweynaha golaha fulinta oo dhan sheeg golaha fulintiisa ku gobiin madaxweynaha rabaan ugu gobiyihiin لكن ده ما أساسي ولا فلنتا ده هو كومين هاي لا إحنا ده كومين لا كومين بدأ حين كعينك سوسي قنا قلب فلنتا بدأ حين هاي بدأ كعينك قلا وزير ده قلا فلنتا سوي مكواي ما خارج بس عران فعلوا قدبيني بدأ حينها سجى فلنتي ثمانية ده لكن دقيقة يمدح مقعينها يقول وزيرها صدق ويان كلام فلنت برلمان كي يقولتي هنا ولا فلنت نعم وصدق ما يقولي تسعة ساشي تسعة ساشي ولا فلنت كوعي مرة ولا فلنت إنسى كوبين صدق كوبين ما يقولي وعد مدحينها iyo sharcidejinta aan maxay baarlamaanka guudsi sidoo kale kiisa madaxweynaha saddex waa shaashada way saxan leeyahay waawiyaan waa madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo wasiirka golaha wasiirada weeyaan madaxweynaha iyo golaha wasiirada su'aashaasi si wanaagsan muwaadinka soo gartay golaha fulintu in ka soo gurfatay golaha fulintu waxay ka kooban yihiin waa madaxweynaha ku-xigeenka iyo golaha wasiirada si sax su'aashaasi uga jawaabtay abaalmarintaana waad leedahay oo ay kugu talagashay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka somaliland oo kaashanaysa waaxda wacyigelinta wasaaradda waqooyiga somaliland waaye hadda marka hore master ku guuleysaysa waaye bismillaah marina darfa macdu horta madaxweynaha ana mid u diraya wasiirka warfaafinta ana mid u diraya shacabka waxa u dirayo madaxweynaha waxa u diraya waxa weeyaan marina u dirayo wasiirka warfaafinta salabanka hore inuu ku wareejiyo guddooniyada oo inay kaayeen ku wareejin waayo codkarnimada iyo soo jeedisada wasiirkiina hore ku
golaha wasiirka warfaafinta waxaan dirayaa horta shaqaqada ka hadli maayo laakiin waxaan ka hadlayaa xagga TV-ga qaranka inuu iska bedel sameeyo iska bedel waayo aad buu liitaa xagga tayadiisa xagga waliisiiba kamarada ma la fiirso waayo kii barafadka ka sareeya marka la eego madaxweynaha aad u faranta soo xada video la furayaa in dastuurka akhriyaan loona furo meel ay ku dhigtaan way aad u mahadsantahay abaalmarintaas ku guuleysatay oo aad dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale qadarka si lacagta waan kugu hambalyeynaa abaalmarintaas ku guuleysatay aad u baahan waa tahay weli waxa daawanaysan barnaamijkeega Tarmadaha iyo hadiyada dastuurka oo toddobaad kale kaga imanaya caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa mid kamid ah muwaadiniinta ka qayb galaya barnaamijka walaal ku soo dhawo barnaamijka barnaamijka hibeynta Ramadaanta iyo hadiyada dastuurka weli ma ka qayb gashay may waa markii ugu horeysay ma daawatay weli waan daawadaa si wanaagsan baan la socdaa way barnaamijku su'aal buu weydiin doonaa su'aasha si xadaad garato abaalmarin baad leedahay waan gartay abaalmarintaasina waxay ka kooban tahay qadar lacaga iyo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland diyaar ma tahay su'aasha ku diyaar waanahay waa dastuurkaygii seebaana ina ka jawaabana waajibay way su'aasha tan ku odaysaa golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha waa imta ma guurtida waa 6 sano 6 sano way ما يولح وقوة كلا واشن لكن يجوا يولح يكدي ويهن سنة بكتب بيان قوة كلا مركا يولح ها وقات كسنة واي هاي المواضيع كانت ساشة سوى وقت شوابي مركا ورا مقعد لو ما در مقعد ما هذا يا لا ما هذا يا شرع الحمد لله واي ما هذا يا شرع ادي ادل كلام العلم ساشة سي ادك شوابتي وهاي سؤال aad u adag kunti dadku aanay ka jawaabi kareynin inaad ka jawaabto aad iyo aad kugu hambalyeynaa hambalyeeyaan ku heenay abaalmarinta wadnaga haysa waa qadar lacag iyo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland thank you waan u baahnaaday wallahi dastuurka waan u baahnaa waxba iga dhilaayo waan u baahnaa way farriinta u dirtay maxay dadka wallahi waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland mid ha noqdaan wadankooda iyo ciidoodana ha ilaashadaan cadaawo baday mid guda joogiyo mid dib joogaba marka waxaan oran lahaa ummadeeda kula talin lahaa waar isku dubni raaja oo madaxdiina ka dambeeyo adeeca maanta cadawgeenu u farabatay waa tahay weli waxa daawanaysa barnaamijka hibeynta Ramadaanta iyo hadiyada dastuurka mid kamid ah muwaadiniinta ka qayb galay barnaamijka su'aal weydiin doona walaal magaca Cabdiraxmaan Maxamed walaal Cabdiraxmaan Hargeysa laga soo nooshay Hargeysa ka xaafada weli barnaamijka hibeynta Ramadaanta iyo hadiyada dastuurka ka qayb gashay weli maanta goors waan daawada laakiin way su'aal barnaamijku weydiin doona su'aasha saxda ku jawaabto abaalmarin baad leedahay abaalmarintaana waxa kugu talagashay wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka waxa ka kooban tahay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qadar lacag ah oo ka fardo insha Allah su'aashu sare koonaysa waxa garsoorku inta ka kooban garsoorku waxay ka kooban tahay garsoorka iyo maxkamadaha garsoorka inta waaxda garsoorka dhalshay إيصاد maxkamadaha ku tahay maxkamadda sare iyo gobolka iyo degmada iyo tiraxtaanka iyo adu inta kow iyo laba inta ay bilowdo ii sheegaysa dadweynaha u shaqeynaya waxa garsoorka waa waxa saxaad garsoorkii koonta laftiisa iyo maxkamadaha maxkamadda sare iyo maxkamadda dhexe maxkamadda sare iyo gobolka degmada tiraxtaanka afar gobolka tiraxtaanka degmada sare maxkamadda sare gobolka iyo degmada tiraxtaanka afar wey garsoorku waa saddex dhagaare ku dhagaarka saddexaad weey marka intaas ma وقال كتب أفرها وهذا كاسيس عاش أسماء وقرن يعني وكمان يستوابين إن شاء الله يقول بنقول شيئنا وهاي دعوة يعني أنت تسمع كوسا كمان يا كوسا يقول أنا يا برامج كي بين ترى تي هذه الدستور كا
barnaamijka dhinaca kamarada waxaa duwaya cabdicasiis cali nuur waxaanu mahad celinaya axmed saxardiid iyo sidoo kale cabdicasiis maydhax oo barnaamijka iyaguna qayb ka ah intaynu barnaamijkan mid lamid a isugu iman doono anigii khayrta kala qayb qaatayba waxaanu idin leenahay رمضان كريم دولني ما دستور شقية وكالة تنبين قرني ما لغو دوجيو دلقا لغو مامولا هاي دلقا لغو مامولا دولني ما دستور شقية وكالة تنبين قرني ما لغو دوجيو lagu maamula hoy dalka lagu maamula dalka lagu kala hagaa daweeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya dastuur waa inuu mihi